Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada dalabla media waxaan idinla wadaagi doonaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka hiiraan. Waxa kaloo aad maqli doontaan boqor buur madow oo sheegay in somalilan ay suurtagal tahay inay la midowdo soomaaliya. Waxa kaloo aad maqli doontaan dowladda federaalk oo dalbatay in la kordhiyo saamigeeda jaamacadda carabta. Waxa kaloo aan idinla wadaagi doonaa dowladda war ka soo saartay arrin soomaali badan ay ka naxeen oo la xiriirta Kenya. Soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay janaalka subscribe inoo sar muuqaalkii noo like garay asxaabtaada la wadaag aragtidaadana waxaad inoogu soo gudbisaa qaybta faallada. Mahadsanidin. dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka hiiraan. dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka waabweyn ee hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan, kaasoo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee macawiisleyda oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kooxaha nabaddiidka ah. iska horimaadka ayaa qarxay kadib markii dagaalyahano ka tirsan kooxaha nabaddiidka ah ay dileen 2 qof oo rayid ah oo ka soo jeeday deegaanka. dilka 2 qof ayaa la sheegay inuu kiciyey cara xoogan, taasoo keentay in ciidamada macawiisleyda iyo kuwa xoogga dalka ay weerar ku qaadaan fariisimo ay kooxaha nabaddiidka ku lahaayeen deegaanka waabweyn. dagaalka ayaa si degdeg ah u xoogeystay iyadoo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. ila deegaanka ayaa sheegay in rasaas culus laga maqlay aagga uu dagaalku ka socday, halka ciidamada dowladda ay go'aan ku gaareen in ay la wareegaan goobta si ay garab u siiyaan ciidanka deegaanka. wararka horudhac ayaa tilmaamaya in dagaalka uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan weli la heli karin tiro rasmi ah oo u muujinaysa khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. sidoo kale waxaa lasoo sheegay in inta uu socday iska horimaadka la maqlay duqayn, hase yeeshee weli lama oga cidda fulisay iyo khasaaraha ka dhashay. deegaanka waabweyn iyo deegaano kale oo hoostaga degmada maxaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa macawiisleyda deegaanka oo iskaashanaya, kuwaasi oo wajahaya dhaqdhaqaaqyada kooxaha nabaddiidka ee ka jira gobolka hiiraan. gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid ka mid ah goobaha uu sida weyn uga socdaan howlgallada ka dhanka kooxaha nabaddiidka, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dhowr jeer ku qaadeen weeraro ka dhana fariisimaha kooxda. dhinaca kale kooxaha nabaddiidka ayaa iyaguna kordhiyey weerarada ay ka fulinayaan deegaanada gobolkaasi. ma jira ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ama maamulka hiirshabelle oo ku saabsan dagaalka ka dhacay waabweyn iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay soo baxaan faahfaahin dheeraad ah maadaama xaaladda deegaanka ay weli tahay mid kacsan. dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalbatay in la kordhiyo saamigeeda jaamacadda carabta. safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar ahna ergeyga joogtada ah ee soomaaliya u qaabilsan jaamacadda carabta cali cabdi awaare ayaa ka codsaday jaamacadda carabta in soomaaliya la siiyo saamigeeda ku aadan jagooyinka sare ee ururka. saamiga ay soomaaliya dalbanayso ayaa ah jagooyinka sare iyo hoggaanka ergooyinka ka dhex shaqeeya xogayaha guud ee ururkaasi si loo xaqiijiyo matalaad ay soomaaliya ku yeelato hay-addaasi. codsigan ayaa yimid intii uu safiirka kulan kula yeeshay magaalada qaahira xoghayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil fahmi. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo jaamacadda carabta iyo sidoo kale arrimo kale oo khuseeya danaha wadajirka ah ee dalalka xubnaha ka ururkaasi. safiir cali cabdi awaare ayaa xogayaha guud guddoonsiiyey hambaliyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud, isagoo ugu hambaliyey nabiil fahmi xilka cusub ee loo magacaabay ee xogayaha guud ee jaamacadda carabta. waxa uu sidoo kale caddeeyey in soomaaliya ay taageersan tahay dadaalada lagu xoojinayo wadajirka, iskaashiga iyo sidoo kale horumarka dalalka carabta. safiirka ayaa intii uu kulanku socday soo bandhigay xaaladda guud ee soomaaliya, gaar ahaan horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga, dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo sidoo kale dadaalada diblomaasiyadeed ee ay dowladda federaalka ku doonayso in ay ku ballaariso xiriirka ay la leedahay dalalka carabta iyo hay-adahooda.
waxa uu carabka ku adkeeyey in Soomaaliya ay mudan tahay in ay hesho saamigeeda ku aadan xilalka sare ee Jaamacadda Carabta maadaama ay tahay dal xubinka ururka. Sida uu sheegay safiirka, kordhinta matalaadda Soomaaliya waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta doorka ay ku leedahay ururka iyo difaaca danaha Soomaaliya ee heer gobol iyo heer caalami. dhankiisa xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Nabil Fahmi ayaa isaguna waxa uu sheegay in ururku uu muhiimad gaar ah siinayo taageerada Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka kala dhexeeya, isagoo xusay in si dhow uu tixgelin doono codsiyada iyo aragtiyaha ay dowladda federaalka Soomaaliya u soo gudbiso. ugu dambeyntii, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adaha ammaanku ay sii wadi doonaan dadaalada lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasiloonida, iyadoo ugu baaqday cid kasta oo weli ku jirta kooxahaas hubaysan inay ka faa'iidaysato fursadda dib ugu soo laabashada bulshada iyo dowladnimada maadaama aanay jirin sabab ay silic ugu sii noolaadaan duurka. tallaabadan ayaa dhabarjab ku ah kooxda Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee horay looga saaray magaalada Baydhabo kadib isbeddelkii ka dhacay magaaladaas oo uu ku soo baxay hogaamiyaha Koonfur Galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. guud ahaan daawadayaal, warbixinteennii intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janalka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo laagarayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada. mahadsanidin.